السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بدأوا ضيال سوى البعض نوضع ونساني ميل والبعض نقلت شان قادسان دافع عالمك هل كان ومقبايها ديجان كاسومالي دا SR TV داو ضيال وحل سوق قاري هذه الداوين جرتين برامج كيني تضبط لها هاي عد كدلن يرضها هدي النسوق ابطا قضب كوجه الرئيه قيبتك برامج كينو عد كدلن يرضها waxa uu noqonayaa doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin ama ay ka helaan fursadaha shaqo abuur ee bangiyada gaarka loo leeyahay. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dhalinyaro ka hawlgasha bangiga gaarka loo leeyahay ee Dashin waxayna noogu warbixiyeen qaabka ay fursada shaqo abuur ay ugu heleen iyo dabcan sidoo kale fursadaha shaqo abuur ay diyaarka ay leeyihiin bangiyadu ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyaradu nala daawada. waxaan ku dhashay ku barbaaray isla magaalada Jigjiga waxaan dugsiga sare dhexe ku qaatay isla Jigjiga waxaan ka qalin jabiyay jaamacadda Jigjiga 2014kii tirsiga Yurubta maadada xisaabaadka iyo culumta bankiyada la xiriira waxaan shaqadii koobaad waxaan ka soo shaqeeyay bankiyada dawliga ah iyo hay'adaha dawliga ah ee hay'ad caalami la muddo 7 sano waxaan hatahay maariifayga bankiga Dashin laanta kala duwan. ugu horeyn Ridwaan waxaan jeclahay inaad warbixin kooban aad naga siiso باكيجيada ama xidhmooyinka aad ugu tala gasheen in dhalinyarada loogu sameeyo shaqo abuur bangi ahaan maxaa idinka qabsoomay maxaa qorshiin uu ku aadan yahay horta bankiyada adeegyadu bixiyo waxa kamid ah adeega aan ribada lahayn hadda ka hor deegaanka maadaama wadan deegaan muslim ay nahay bankiyada waxaan uga faa'iideysan jirin diinteena loo gelin laga faa'iideysano balse hadda maadaama ay bankiga dhexe ku soo kordhiyeen adeega aan dulsaarka lahayn ama ay jiraan bankiyo aan riba lahaynba waxaa jira adeegyo badan oo dayarta iyo muwaadiniinta u dhashay Ethiopia inay ka faa'iideystaan sida qaybta muraabaxa iyo mushaaraka isna tijaara iyo qof kasta hal abuur leh ama shaqo abuur leh fikradeedina la garab istaago oo laga faa'iideysto dayar badan oo dumar u badan waxaa jirta aan amaha siinay maanta wali deegaanka jooga waasoo ka faa'iideystay alxamdulillah waxaan ku jiray dad badan oo waxa jira dad dhalinyaro hal abuur leh fikir leh oo inta qoyska u dhamaan shuruudo ama ha oo si diilay waxaan u baaqaya qof walba xirfad leh ayaa ay maxay hal abuur leh in loo yimaado nalo wadaago wixii aan karaakay aan qaban karnaa aan qabano balse aan ka fadhiga ka gacano waxa dadka horumar gaarsiiya horumar lagu gaaraa waa bankiyada Ethiopia sare dadka si qurux badan dadka enterprise-da dheeraad enterprise kuwa shirkadaha yaryar kuwa dhexe kuwa sare waxa heerka gaarsiiyay waa bankiyo marka wax walba hoos baa laga bilaabaa inta badan waxa jirta inaysan dhalinyarada deegaanku aysan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo abuur ay bangiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay bixiyaan maxaa arintaasi caqabad ah oo hor taagan horta laba mid baan karaa mid waxa weeyaan wacyigelin la'aan ka jirta gaab labada dhanba anagoo bankiyada iyo shacabkiiba oo hadda qofku waxaan ogeyn bad inuu ka faa'iideysto ogaado ama barto ama garto ka wareysa marka xoran la waxa ka hor taagan in ka faa'iideysto waa wacyigelin la'aan marka bankiga Dashin waa bankiga bankiyada kala wareeya qaybta horumarka deegaanka ka qaata haday dhalinyaro noqoto haday haween noqoto haday shaqaaleysiin noqoto haday shaqo abuur noqoto haday abaar noqoto waa bankiga ka qayb qaata marka bank kasto oo Ethiopia ka jira waxay leeyihiin hadaf yool rajooyin waaweyn bilayn marka rajooyinka waaweyn vision-kooda mission-kooda meel walba soo dejiyaan laan kasta ku arki kartid waxa uu leh social responsibility waajibaadka muwaadinimo diversity waxa soo dejiyaan balse kuma dhaqmaan marka anagu waxaan ay bankiga hirgeliyay dayada deegaanka Soomaalida iyo horumar oo ah inuu garab istaago hay'adaha ka shaqeeyo isla bankigu wuxuu ka faa'iido bankiga Dashin Bank isla deegaanka wuxuu ka faa'iido dib ugu celiyo deegaanka ama ha qaybta gararibada waan biloway door la soo qof sidii laanta hirgeliyada hadana diyaar baan qaar baa ku jira pipeline oo dhamaanaya hadana diyaar baan insha Allah maasanid Ridwaan sidoo kale waxa jirta inaysan dhalinyaradu sidoo kale aysan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo abuur ee laga helo gudaha bangiyada iyo inay ka mid noqdaan shaqaalaha bangiyada arintaasi oo muuqatay inay inta badan qoomiyadaha kale ama dhalinyarada ka timaada qaybaha kala duwan ee dalka ama deegaanada uu ka kooban yahay
ay shaqo abuur ka helaan balse kuwa deegaanku ay bannaanka ka joogaan arrintaasi maxaa caqabado hortaagan ma dhinaca dhalinyarada ayay ka jirtaa mise dhinaca bangiyada ayuu culaysku ka jiraa horta anugu dhanka horta bangiyada anugu waxaan odhan karaa dhankaasi laba siyaaboodeen kow inagu aaminsan diinta islaamkiina ama islaamkii maadaama dad muslim nahay ma ogolo in banka la shaqeeyo balse maadaama uu bankiga dhexe uu ogolaaday qaybta balaarnimada inaa lagu soo kordhiyo adeega hadda kahor waxaan u geysan bankiga waxaa ka mid ah islaam diintiina loo ogolayn tan labaadna waxa weeyaan bangiyadii oo ah central meele laga maamulaya ah meel dhexe ama tadhab laga maamulaya ama dhisa laga maamulaya marka vakansigii job vakansigii soo baxa ama ayagii ama shaqadii soo baxday muqadirka soo baxayso aga meeshan agaarkii caasimada jiga ama goy ama qabdaad ama dhahmuur lagu soo jiriyo mana qofka hadduu arkin baa suuga faysan karaa marka waa laba mid weyn waa in bankiyada ama sida bangiyada sida bankiga national kale ay sel qaadaan oo ay luqadda localka shaqada ka shaqo kala shaqaysiyaan iyo kaashanay bankiga jaamacadda jiga haddii aan la siin apartment of action si gaar ah dal loogu yeegin waxaan oran karaa meel ka muuqanayaan dadka ajnabiga dadka sida meelaha ka shaqeeya bankiyada xagee yimaadeen waa dad meelo ugu soo dejiya ma dad soo dejiya ma dad ugu dejiya qofkii transport ayaa loo baahan inuu bixiyo qofkii inuu qaljibiyey meel hotel u saxanaya inuu helayaba luqadii communication-keeda loo baahan marka dhibaatooyinkaas ay la taaniga laakiin way ka faa'iideysan karaan way ka faa'iideysan karaan waxay dayarta deegaanka Soomaalida ka faa'iideysan karaan fursad shaqo anagu ugu horeyno dogmantii markasta rondi waan qaadnaa rondigii labaad baan shaqaaleysanay rondigii saddexaad baan bilaabnaa insha Allah muddo gaban waxaan u baaqayaa deegaanka Soomaalida insha Allah bankiga daash mar walba diyaarinayaa bangiyada kalena saas waxaan ku bogaadinayaa bangiyada kale ee deegaanka jira inay dib u eegaan isaxaan deegaanka Soomaalida maadaama adeega la bixinayo aan siin shacabka siin ay dad Soomaali yihiin waa qasab dadka shaqaalaha mas'uulku ilaa qof uu hooseeyo waashmaanka qof ugu horeeyo soo galaysa adoo soo galaya qofka qoslaya ku soo weynaa Soomaaliya waa qasab waana shaqada ku jirta qof luqadeeda ku hadleen ama anoo hadan luqada Soomaaliya ku hadleen sidii qof macmiilka ugu shaqaysan macmiilka u adeegay marka faa'iidada bankiga ku jirta inuu qof Soomaali ka shaqeeyo kow faa'iido badan buu kaleeyaa oo sanadkii faa'iidada sanadkii oo badnaa laba kalsooni macmiilku helaya wala saamiya marka faa'iido u jirta Soomaaliya ka shaqeeyana aaminsanaan maskaxaan iyo firfircoon ahaan deegaanka Soomaalida ama deegaanka Soomaalida ama dad Soomaalida dadka xataarisan in jiraan lama computer loo shaqeeyo computer qof Soomaaliya aan dareerin jiray sanadkii tagay waxa sanad ka duwan sanadihii hore ee bankiga daash soo maray markii aan maarto managementiga dadka u sareeyo mas'uuliyadda u sareeya markii aan soo boqdeen abaarey ka ay arkeen ay abaarey ka qaateen ka bacdi waxyaabo badan bedelay kuwa kamid ah waxay ogaadeen in loo baahan yahay muwaadiniin ama dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaanka ku dhashay inay bankiga ka shaqeeyaan dan laba kun iyo kow iyo labaatankii markaan dhaafay waxyaabo badan baa gadaasha deegaanka qabtay ay ugu horeeyeen abaarey ka qaatay in balantii hore kontonka milyan ay shaqaabo ka galeen inay 100 milyan ka dhigaan dhawaan sidii in laba jeer oo isku xigta deegaanka Soomaalida u dhashay oo ka kala yimid goodi ilaa iyo Shinile ilaa Dulcado gobol kasta hal qof laga soo doortay laan kasta deegaanka u dhashay deegaanka ka jirta waxaa ka shaqeeya qof loo kaalo meesha u dhashay qofkii dhagax buur qof dhagax buur ka shaqeeya qofkii qaldaar qofkii gudi qofkii wajaala qofkii qalbi marka waxay sababtay kalsoonidii muwaadiniinta ama deegaanka inaan xanaano ugu dambeyn ma jiraan fursado gaar ah oo dhalinyarada si gaar ah looga faa'iideeyo gaar ahaan dhinaca shaqo abuurka deerta waxaan baaqi lahaa inay ka faa'iideystaan waa kow qofkii u baahan inuu shaqo ka helo ama shaqaaleysiin u baahan inuu darso meesha uga baahan yahay oo aamino inuu xaq u leeyahay ka shaqeyn karo una heli karo inuu aamino qofkii doonayo shaqo abuur ama inuu ganacsiga bilaabo ama haddii qaato qaybta bilaarubada waa inuu su'aalaha weydiiyaa bilaabaa ka qaadaa waxa haddana tijaabin aan gelin waxba kama wada gelin marka waxaan leeyahay propaganda ama waxa la iska leeyahay bankiga hebel waxma bixiyo ama waxa lagama helayo inta leeyahay iska baahiyo fadhiga laga kaco allis waxaan u baahanahay aan darisno aan gaano aan ogaano meesha gelin dad baa garanaya
wax weydiin dadka la weydiiyaa hay'adda la tashado kaashado dan wixii naga maqan waan heli karnaa balse anagu anoo meelaan garin haddaan ka hadlo halkaa waxaasa ka jira ma garanayo waxaan ka sheegi karaa alis bagan waxa aan tago aan ogaado aan galo ayaan wax ka sheegi karaa mahadsanid Ridwaan fariintaada u dambaysa ee dhalinyarada deegaanka la wadaagayso maxay tahay waxaan dhalinyarada deegaankeena u dhawaaqayaa walaalayaal insha Allah inaan isku dubnaano fadhiga kaco alis waxaan ogaano waxaan isku dayno horumar waan gaari karnaa insha Allah san marka deegaanka kale ay gaareen aan ogaano inaan fadhiga kacno aan wix kasta waan karnaa waxaan karin waxa negative leeyahay waxa negativity waduu environment negativity lagu jiro horumar la gaaro marka waxa la baaqaya waxa la kareemi jirta maanta fursad badan ma haysanaa deegaanada kale dhibaatooyin badan ka jira deegaanka nabada wada insha Allah wada noolaansha leh fursad badan oo inta jira marka waxaan leeyahay kaalaya ama hab badan baa la qaato xaq badan oo leeyahay kaalayna weydiiyana bank ahaan dash bank ahaan waxaan balan qaadaya wax walba oo shuruudaha ka dhamaysan ma hanisdiin in insha Allah aan ka shaqeeyaa bangiga Dashan khaasatan Jigjiga laan kamid ah laamihiisa in qaybtan ka shaqeeyo IFP oo yani waa non interest waxaan kamid ahay dhalinyarada deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga waxaan shaqo abuur ka helay ama ka shaqeeyaa bangiga Dashan gaar ahaan branchiga Gradwal IFP bangi oo ah interest free inta kadib kulli anagu dhalinyar badan baan hayn Facebook ugu dambeeyay baan hayn oo hadda muddo bil ayaan ka shaqeeyaa bangiga markaan tababarka soo dhameysanay waxaan hayn 17 qof aan hayn oo deegaanka matalay oo Soomaali una 17 oo hadda branchiyada deegaanka loo kala qaybiyay laga soo bilaabo Goday Qabridahar iyo Dhagaxbuur iyo Qarbayax iyo Jigjiga iyo ilaa Lafacis iyo ilaa Bombaas branch walbana hadda bangiga Dashan ugu yaraan 3 qof oo Soomaali ayaa jooga oo bulshadii inay luqadooda ugu adeegaan u fadhiyo oo lagu raali gelinayaa waxaan ugu baaqanaa dhammaan dhalinyarada deegaanka in yani fikirkii hore iska iloobaan hadda waxaa jira fursado shaqo bangiyadu ay bixinayaan marka inay ka faa'iideystaan baan rajaynayaa si dhalinyarada kale deegaanada kale Itoobiya ay uga faa'iideystaan ogana shaqeeyaan bangiyada telega wixii lamid ah way awal fursado meena kula hadda laakiin fursado badan baan helnay hadda ka hor dhalinyaradu fikir qaldan ay bangiyada ka aaminsaneed ama inay gasho way ku adkeyd oo waxa weeyaan waxay ka aaminsaneen inayna ka shaqeyn karin laakiin hadda waxaan u jeedinaynaa inaan ka shaqeyn karno bangiga iyo meel walba ilaa meesha hooseysa ilaa meesha sareysa inaan ka shaqeyn karno bangiga u horeeya fikirka jabiyay dhalinyarada Soomaalida ku tijaabinaya bangiga Dashan inuu yahay ayaad ka warhaysaan dhinaca kale waxa weeyaan dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa in fursado badan baa bangiyada ka bannaan xuquuq badan ay dhalinyarada deegaanka u dhalatay xaq u leeyihiin ay ka shaqeeyaan ayaa ka bannaan in ay ka faa'iideystaan oo fikirka Soomaali bangiga ka shaqeyn karta inaan jabino waxa weeyaan qoomiyadaha kale si aan ula tartanno qoomiyad walba ama deegaan walba marka tagto dhalinyartoodii baa ka shaqeynaysa waxa weeyaan ummadda loo adeegayo luqadoodii baa loogu adeegayaa cid ay garanayaan hadda qofka hooyooyinka aan luqadii garanaynin hadda dhibaato ku tahay bangiyada markay ka shaqeynayaan markay lacagta dhiganayaan runaantii way nagu farxaan sababtoo ah markay ku imaadaan waxa ku dhahay Soomaalida tahay يعني marka kana isfahmaysan isku luqad tihiin yani qofkii si hufan oo hadli karto yani ku farxaan in soo dhaweeyaan sidoo kale bangiga shaqo abuur ama waxa uu bixiyaa yani inay ka faa'iideystaan waayo ribo ma laha wala murabaxaynaya yani waa shaqo abuur ama deymo waa qaabilsan islaamiga salaan hadda bangiyada Soomaalida waxa uu isticmaashaa warqadda gabiga bay soo qaadaan ama warqadda ila baxaysan bay soo qaadaan wax xiriir oo kale ay leeyihiin qofkii meesha ka shaqeynaya bangiga ama waxyaalihii kale ee uu qofku xaq u lahaa hatta haddii wax ka qaldama inuu u sheego xataa way ku adkaanaysa markii hore laakiin hadda qofku uu kula wadaagi maadaama isku luqatiin maadaama isku dadtiin maadaama Soomaalida watiin wixii ka qaldan iyo wixii xog u baahan yahay uu kula wadaagi waxaas ay qaldan airbad ka tusmad ka sii waxyaalaha kale ee wataqaanay bangiga laftiisu xaq deegaanka ugu leeyahay ama dhalinyarta ugu leedahay lafteedii inay shaqo abuur ka helaan ama shaqaalaysiin noqoto ama deymaha noqoto in investment iyo maalgelin loo sameeyo fursado badan oo noocaas maadaama meesha ay hadda ka hor ay ku waxaysnaan laakiin hadda waxaad moodaa isbedel inuu ka muuqdo tusaale ahaan bangiga Dashan oo kale waa bangiga hadda bangiyada ugu roon ee dhinaca maalgelinta ama shaqo abuurka hadda qorshe ugu dambeeyay hooyooyinka loogu talagalay 100 milyan ee loo sii daayay ayaa ku ka haaban filaya ganacsato badanna way ka faa'iideysatay oo investment badan bay qaadatay marka bulshada kale ee deegaankan waxaan ugu baaqiyaa inay ka faa'iideystaan fursadaha noocaas oo kale gaar ahaan dhalinyarada والله أنا اسمه ديجي شرين وقت كشقين دون تابع
kama fikri jirin xitaa laakiin sidii adigu kadisaan ku helay kadibna waxaan ogaaday in dee qof walba shaqada loo sameeyahay ay nagu xiran tahay annaga ahaan dhalinyaro ahaan ka deegaan ahaan in dadii waxbarashadii ay guriga la fadhiisan ay ka faa'iidaystaan ay bulshada uga faa'iideeyaan ayagana ay ka faa'iidaystaan nafahantooda waa hagaag daawadayaal qodobkeena xiga ayaa waxaynu ku soo qaadanaynaa ciyaaraha isboortiga maxaad ka taqaanaa taariikhda allah u naxariistay cabdicasiis budiste qoyskiisa iyo waayihii ciyaaraha uu ku lahaa deegaanka gaar ahaan geyiga ee Soomaaliya degto ugu horeyn Axmed aad baan kaga mahadcelinay ku soo dhawow SRTV barnaamijka ciyaaraha bal ugu horeynteena u gudgalin bal waayaha ciyaareed waxaan loo warbixisaa allah u naxariistay aaba cabdicasiis budiste taariikhdiisa waayihiisa ciyaaraha aaba cabdicasiis budiste allah u naxariistay taariikhdiisa waxyaabo badan baan taariikhdiisa aan ka garanayaa الله نحرسته كوبادة عقته وهرنتي وحو كسب بالعبي تورت سوى كل شيء مقالة الدربة كم سقاب ولا خدنا صدق الدربة كل شيء كوبادة توكسي جيسي هو مدرسة القرآن كحاجة تخصها برت الدربة كوبادة سي وجهري سي وعياري وحو عياري الدربة وعياري كواحد الدربة كده سنبوع عياري نسوي الدربة كواحد كده سنوع عياري اليوم مركز دم وحو تجي مقالة المقدسة يو تجي مقدسة ما كنت تجي كوبادة أنت سبدنا كوبادة عقته وعياري مقدسة فوق عطي وعياري شري مقدسة أدو عياري كوبادة عقته markii dambena wuxuu noqday ciyaartooyada xulka qaranka Soomaaliya ayuu kamid noqday kubadda cagta wuxuu ka ciyaari jiray weerar buu ahaa afka hore ka ciyaari jiray weerar buu ahaa intiisa badan taariikhdiisa intiisa badan waxa weeyaan kubadda cagta geeyiga Soomaalida taariikh badan buu ku dhigay waxa weeyaan aad iyo aad markuu waagu noolaa uu nooga sheekeyn jiray waxa weeyaan kubadda cagta aad iyo aad buu ciyaari jiray markii dambe kubadda cagta uu aad u ciyaari jiray markii dambe wuxuu noqday tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ayuu noqday tababaraha xulka qaranka Soomaaliya isagoo ah ayuu wax weeyaan ayuu dagaalkii qaxi dhacay kadib wuxuu ku soo noqday deegaanka Soomaalida ayuu ku soo noqday xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ayaa looga dhigay agaasim looga dhigay xafiiska oo wax weeyaan oo tayadiisu iyo qaab dhismeedkiisu iyo wax weeyaan iyo xafiiska iska hoosisay ayuu in muddo agaasim ka ahaa xafiiska wax badan ka qabtay xafiiska wax badan buu ka bedelay xafiiska tayadiisu kor u qaaday dhalinyartii kubadda cagta ayuu kor u qaaday xafiiskii kor u qaaday wax weeyaan maadaama nin kubadda cagta khibrad ku lahaa uu yahay kubadda cagtana uu garanayay sharciyadina uu garanayay kubaddina uu garanayay xafiiska wax badan buu ka bedelay xafiiskii heer sare u gaarsiiyay xafiiska kubadda cagta in muddo ayuu ka ahaa agaasim buu ka ahaa agaasimka ciyaaraha ayuu ka ahaa xafiiska in muddo uu ka ahaa aad baa u mahadsan tahay Axmed allah u naxariisto aaba Cabdicasiis Budiste ugu horeyn qoyska reer Cabdicasiis Budiste imse ka kooban yihiin saad soo sheegtay ciyaaraha ayuu ka soo shaqeeyay in badan geeyiga Soomaalidu degto isla markaan xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ee deegaanka ayuu waxa kala duwan ka soo qabtay bal idinka dhalinyar ahaan imsa ma taqaanaa ayaad ka hidar raacdeen oo ku ciyaartaan kubadda cagta waxa weeyaan qoyska Cabdicasiis Budiste waxaan ka koobanahay 14 caruur Allah naxariisto 14 caruur dhalay wuxuu dhalay 8 wiil iyo 6 gabdhood 8 wiil hal wiil baa dhintay Allah naxariiste 7 wiil oo kale waxa weeyaan 7 kubadda cagta waan ciyaarnay waxaan waa hiddo ma garanaysaa hiddo weeyaan kubadda cagta aabahay waan ka dhaxalnay midda kale aabahay waagu noolaa waxa weeyaan waxbarashadana aad buu nagu waanin jiray isboortigana aad buu nagu waanin jiray waxyaabaha xun ee balwadi waxaas ayuu naga waanin jiray waxa weeyaan waxbarashada iyo isboortiga iyo quraanka intaan u dhaxeeyo buu dhigi jiray marka toddobadeeda wiil waxa weeyaan maxamed Cabdicasiis Maxamed oo ninka noogu weyn ahaa xaafadda curadkii aad buu ciyaari jiray kubadda cagta uu ciyaari jiray nin difaac buu ka ciyaari jiray difaac buu ahaa aniga ku xigay oo Axmed anaga Axmeda أنا عيال شري كبدة عكت مهلا بدل ما كعيار دفاع ما كعيار وير ما كعيار عرف ما كعرف ما كعياري حمزة شري سوونا حمزة عبد العزيز محمد ولا قرنا جو أنا نسي سلوال ولا له أذو عيار كبدة عكت أذو عياري وحويان آد كبدة عكت عياري وحويان مركز دفاع ما كعيار شري دفاع أذو دفاع أجوها مركز دمنا تطلع شري حوك قرن كتير بيعلى قدري فوزي عبد العزيز محمد ويقول كان هرفر يا يسقوا بالله سبب بكعيارا وحويان وأنا كريادي أباي سوء عيار شري وخلوا عيارة ويان waxweeyaan aabahay goolelintu aad ugu fiicnaa ninkan ayaa booska aabahay bedelay hadda saas leenahay reer Cabdicasiis Mustafa Cabdicasiis Maxamed oo kiina ugu yaraa isagoo baranaa weeyaan baranaa ku jira marka xaafadu dhamaanteed qoys saan ku nahay wiilasheeda 7 wiilba saan ku nahay kubadda cagta waan soo ciyaarnay
fawzi soo dhawow adiguna bal waxaad ka mid tahay qoyska heer Cabdiis Budiste Allah u naxariistay fawzi Cabdiis Budiste bal adiguna maxaad ka haysaa taariikhda aabo iyo bal waayaha ciyaarada adun dhawaaj booskayga waxaan ka ciyaaraa waa 7 magacayguna waa fawzi Cabdiis Maxamed Budiste naanisteedana waxa la yiraahdaa fawzi Budiste gool dhalan geesna waan ka ciyaaraa marka inkastoo aan aabo ka soo gaarin xilligu ciyaarey laakiin taariikhdiisa waan maqlay isna uu iga sheekeeyay in badan ilaa xaafadda waan ka maqlay inuu laacib ahayo ku dayasho mudan lahaa yaa aniguna imika waan ku dadaalkii waan ku jiraa inkastii ugu odhan jiray adoo koob qaaday mar aan ku arko laakiin qadarta rabbi way dhacdo xaggii loo baahnaa uu tagay marka waa caadi dhib malay imikana waa koobka waxaan ciyaarnaa qabalayada 20ka qabalay oo garoonka imika ka socda marka imika 4tii baa la marayaa si fiican baan u ciyaarnaa Etoobiyadana meelan soo marin ma jirto goondar mooyaane iyo Gambeelaga sidhaama inta kale waxa dhan waan soo wada maray Etoobiyada kore 17 jir haday noqoto 18 jirna waan tagay 14 jirna waan tagay 15 jirna waan tagay 13 jirna waan raacay xagan Soomaalilandana Boorama nimka ka ciyaara asluubta oo kooxda asluubta ciidamada asluubta Boorama mooyaan marka kuwaas aan u ciyaaraa inkastoo sidii aabahay uu ciyaari jiray inkastoo aan wali gaarin waan sheekadiisa maqlay laakiin dadaalkeedu waan ku jiraa adigu maxaa Allah u naxariistay aabbood soo gaartay muxuu kugu talin jiray oo ku siin jiray talahaan wuxuu igu talin jiray horta marka koowaad waxbarashadu igu xoojin jiray isagoo sport ciyaar jiray ayaadana waxbarashada xooga saari ugu oran jiray sabtiya haddana mararka qaar sabtiya hadda gelinka hore markaan quraanka tago gelinka dambe wuxuu igu oran jiray iska soo ciyaar lacag bi siin jiray si aan kubadda iskaga arkay kubadduna waa isdhexgal bulshada maalinba qof cusub bas baran saada dadku bad ciyaarta inkastoo igu talin jiray kubadda inkastoo igu talin jiray waxbarashada ku dadaal labada cisho fasaxana uu igu dadaalin jiray inaan kubadda si fiican u ciyaaro oo waxay balwada iyo xanaanaba ku dadaal jiray isna wixii oran jiray balwada iyo iska ilaali anna riyadiisan rumayna rumayo hadda waxa socota tartanka kooxaha 20ka xaafadda maamulka magaalada jirka kooxda u ciyaarta ama xaafadda u ciyaarta qabalayga shanaad ama xaafadda shanaad haye marka 6 gool baan leeyahay wiil bay iga sareeyo 7 wiilayo laakiin uu haray isagu marka aan rajo aad u weyn baan leeyahay laba ciyaarood baan oo dhiman imika axadda soo socotaan ciyaarna qabalayga waxaan ciyaarnaa 15 ama 13 ku bari badaya ayaa noo soo baxaya marka waxaan rajeynayaa inaan finaal sanadkan iska xaadiriyo استحقل برش مويه عريو ديريف وما بهنا ciyaaraha dhaqanka suuban waxay u yihiin laf dhabar dhalinyarta wada jirkooda isdhexgalkooday abuurayaan ciyaaruhu isdhexgalkooday abuurayaan axmed intaadaan kaga soo gudubno taariikhda aabba Allah u naxariistay iyo qoyska aad ka warbixisay heer Cabdiis Budiste Allah u naxariistay aabe inta joogto dhalinyarada inay wada ciyaaryahan yihiin qaarkood boortayiin dhammaan horta dhalinyarada todobadan dhalinyarada ah ma qayb isku position ka ciyaartaa jirta inta u gudagal bal adiga oo horeen qaab positionkaaga iyo xirfadaada waayaha ka ciyaaray waa maasantahay aad maasantahay anigu waxaan ka ciyaari jiray horta kubadda cagta waxaan ka soo bilaabay kubadda xaafadaan ka soo bilaabay mar horena kubadda cagta waan bilaabay in muddo kubadda cagta waan ciyaari jiray waxaan ka soo bilaabay ciyaarta iskuuladaan ka soo bilaabay iskuulada markaan ka soo bilaabay anigu horta waxaan ka ciyaari jiray difaac baan ahaa
difaac number 5 baan ka ciyaaraa kubadda cagta waxaan ka soo bilaabay iskuuladan ka ciyaari jiray markii dambe waxaan u soo wareegay qabaliyada u ciyaaray markaan qabaliyada ciyaaray haddana degmooyin koobkii degmooyin ayaan ka qayb galay haddana koobkii degmooyin oo lafaciisa lagu qabtay degmada Jijjiga qaaday anigana kabtan u ahaa anigana koobka gacanteeda ku qaaday waa koobka kaliya aan taariikhdeeda aan garanayo koob aan qaaday koobkaas weeyaan waxaan ka qaadnay degmada waxaan ka qaadnay Tulli baan ka qaadnay koobka Awbara lagu qabtay finaalka laakiin lafaciisa aan ku ciyaarnay kadib waxaan ka qayb galay koobka gobolka Faafan baan u ciyaaray gobolka Faafan baan kabtan u noqday gobolka Faafan baan u ciyaaray markii ugu dambeysay gobolka Faafan anoo ciyaaraya ayaa xulka dawladda deegaanka Soomaalida ayaan ka mid noqday inkasta aniga iyo walaalkii Xamse aan labadooda aan wax weeyaan aan ka mid noqonay markii ugu dambeysay laakiin xulka dawladda deegaanka Soomaalida ciyaartooyda ayaan ka mid ahaa waxaad sheegtay inta hadda ku guda jirto waayaha ciyaareed inaad koobkii ugu horreeyay aad qaaday oo aad u qaaday degmada Jigjiga gobolada u ciyaartay ma jirto inta gobol matalaysay mar finaal ma tagtay maxaa caqabadood kala kulantay inta ku jirto kubadda cagta koobka gobolada intaan ciyaarayay horta dhowr jeer baan ciyaaray weli wax finaal ma tagin mar waxa jirta caqabad aan kala kulmay aan ugu dhawaa inaan finaal aan tago gobolka Faafan baan u ciyaarayay nin la dhihi jiray Maxamed la dhihi jiray Miig la dhihi jiray ayaa wasiirka dhalinyarada ciyaaraha sportiga ahaa marka aabaheena uu noola alana xariistay markaas waxa ahayd anagoo ciyaareyna oo aad u ciyaareyna gobolka Faafan ciyaareyna ayaan ka badnay gobolka waxaan ka badnay Shanilan ka badnay kadib Shanilan markaan ka badnay waxa weeyaan ciyaartii way dhamaatay ciyaartii hal yar bay ku dhamaatay anaan goolka ka dhaliyay markay dhamaatay ciyaartii kadib baa la yiri 3 dhibcood gobolka Faafan ha laga qaado wax caqabadaha ka hadlaya caqabadaha iyo hor istaagay inaan finaal tago kadib 3 dhibcood maxaa laga qaadayaa hal nin oo ciyaartooy oo Ethiopian xabasha Geordium la dhigi jiray ayaa la yiri wuxuu tagay koobkii kalada ayuu soo ciyaaray baa la yiri marka waagaasan ugu dhawaa inaan finaal aan tago waagaas wax weyn gobolka Faafan ciyaartooy aad u dhisan baa ayaa ciyaari jiray waagaasana waadkan marka caqabadaha hor istaagay taasoo kale kamid ahayd kubadda cagta kooxinta badisay 3 dhibcood laga qaaday ma jirto laakiin anigu waan la soo kulmay waana soo arkay markii dambena waxaan noqday tababare xaafadda shanaad ayaan noqday tababare aan noqday markii dambena waxaan sameeyay dhalinyaro iga yar wax weeyaan soo korisay maadaama jiraan haday noqoto booska ciyaartooyga maadaama weynaaday oo kubadda cagta aan ka weynaaday dhalinyarada soo korisay wax weeyaan ama walaalada ha noqdaan ama dhalinyaro kale ha noqdaan ayaan booska uga baxay aadna waan u dhiirigeliyaa aadna waan u wacyigeliyaa in kubadda cagta aad u ciyaaraan kubadda cagtu aad bay u fiican tahay Fawzi wali wada yartahay inta daba guda jirtay waxa sheegtay laba kilin inaad soo marin oo 40 jiradii 30 jiradii 60 jirada soo ciyaartay bal caqabadaha la kulantay inta guda jirtay iyo inta tartanka socda caqabadaha la kulantay hal caqabad baan ugu dhawaayay oo sanadkan finaal baan rabay inaan iska xadiriyo qabalayga shanaad baan u ciyaariyo sanadkii hore qabalayada marka qabalayga si fiican baan u waday aniga iyo barayaga daadu waan isku wada dheelitirnaantay isku wada ciyaartooyaan inta isku wada tayo ya meel markaan galno isku kanaaleen karay annagoo si fiican u wadna hawshay ayaa waxa imaaday 17 jira la baxayaa baa leeyahay marka afartana waan joognay waxa loo gudbiyay finaal halka ciyaar marka la badiyo marka aanoo si fiican horta rajo aad u weyn ma lahayn waxaan islaabay koobka inaga sanadkan iska loo kuwa finaalka fadhiyana aad bay horta u jecelsanaayeen oo nasiib bay ku fadhistaan aanoo sidii isku waday inaan finaal tago baa leeyahay 17 jiradii baa la baxayaa xafiiska waxaan isku tagnay xafiiska sportiga leeyahay horta kaalaya gelinka dambana ciyaartii baa jirtay marka tootayaal baan loo qaybiyay dhar baan la siixan lagu dhigay diyaaradda ku qorantin markii waan tagay diyaaradii waan iska fuulnay bas waan joogaa Addis Ababa habeenkii markaan joognay caafimaad baa la mariyay waa la isbaariyay taadaan la eegay marka waxaan maqlay qabalayga shanaad baa la reebay marka bas haddana waxaan xoog saaray inaan xagaa si fiican u ciyaaro meel dhiig ban markaa u ciyaariyay marka xaafadeed ma
iminkana way kasoo tegto Soomaaliya oo dhan baan dee ka wada sinaade marka anoo dee sidii ugu tashanayaan tarniingigii waraya garoonka wuxuu ahaa caws iyo dhagaxaan yar isku jiraan marka lugtii baa dhinacayga yar dhacantay adoo dhaawac baan noqday laba ciyaarood markan ka fadhiyaa maroon rajadii tii koowaadna laga badiyay qayntaan qaadanaa 6na laga badiyay tii labaadna 2-1 baan laga badiyay tii saddexaad baan soo kacay marka dhakhtar baan tagi jiray ilbad baan qaadan jiray ciyaartii saddexaad marka soo kacay baan bas markii saad laba daqiiqo marisaba kaastan dhaliyay dee rajana maan leeynta xataa haddaan badno marka waxa la yidhi bas kuwan iska sii deyno baa la yidhi coachka iyo waxba la soo hadlay waan iska sii deynay bas 2 gool baan u sii deynay midna annaga isku dhalnay midda kalena caadi u dhaliyano waan iska istaagnay marka rajo kalena maan leeynta oo iyaga iska sii deynade kuwii ciyaarta koowaad naga badiyay baa marka inaan waxaan rabnay inaan reebno kuwaaba si xun nooga badiyay xafiiska dhalinyarada ciyaaraha ma jira door uu ku leeyahay ama ka warhayn ama og taariikhda qoyska heer Cadays Budiste horta xafiiska waxa weeyaan horta wasiiro badan baa soo maray kulleeyda wasiiradu waxa weeyaan wasiiradu kulleeyda horta binaadamka soo wadin maaha markuu aabe uu noolaa xafiiska joogay uu iska xanuunsanayay nin Cumar la dhaho wasiirka dhalinyarada ciyaaraha sportiga oo ahaa ninkaasi waxa weeyaan ninkaas haddaan run sheegno ilaahan ka cabsano ninkaasi aad buu horta naga warhayay kowdhe si fiican buu naga warhayay ninkaasi abaal weyn aan u helnaa ninkaas Cumar la dhaho wasiirka dhalinyarada ciyaaraha sportiga marka aabe uu noolaa hadday noqoto boqosho uu iman jiray hadday noqoto waxa weeyaan inuu si kale ugu yimaado waxa weeyaan xagga dhaqaalaha ugu yimaado xaafadda oo aabe moraalkiisa ku ilaaliyo uu siin jiray marka Cumar wasiirka sportiga dhalinyarada ciyaaraha sportiga waxa isaga waxa weeyaan isaga haddaan nahay xaafadda reer Cadays Budiste ninka abaal weyn baan u helnaa waayo qayb weyn buu ka qaatay door muhiim ka qaatay intuu xilka hayay ninkaas weeyaan laakiin wasiirka dhalinyarada ciyaaraha sportiga hadda waxa weeyaan maadaama aabana geeriyooday waxa weeyaan wasiirkana de aqoon iyo waxa weeyaan iyo garasho iyo aqoon iyo garashana noomale looma baahna dhalinyaro madasha dheesha isdhexgal barasho mooye cadhiyo dhirif looma baahna ushunakay dhankiisa raacdo ka kale dhab ha u bogadsho ushunakay dhankiisa raacdo ka kale dhab ha u bogadsho dhalinyaro madasha dheesha isdhexgal barasho mooye cadhiyo dhirif looma baahna dhanka deegaanka ciyaaraha waa sidee hoos buu hooseeyaa mid kor buu sareeyaa maxaa tasleeya mataqaana deegaanka uu ka dhimanta ciyaar ahaan oo in kor loo qaado horta deegaanka sportiga kubadda cagta deegaanka haddaan ka hadlo aad buu hooseeyaa weliba in yar lama dhigi karo aad buu hooseeyaa waxa ugu wacan waa xafiiska weeyaan sportiga waxa xukuma horta waa xafiis dhalinyarada ciyaaraha sportiga xafiis baa xukuma xafiiskaas hadduu xoogga saaro dhalinyarada waxa weeyaan iminka tusaale ahaan oo kale aabe waagun la ilaahu naxariistee wuxuu xoogga saari jiray dhalinyarada soo balwada uga wacyigelin jiray waxa weeyaan dhalinyarada moraal buu siin jiray ciyaartooyada waa la soo xuli jiray kilab baa la samayn jiray waxa weeyaan waxaa la samayn jiray intaasoo qorshe buu keenay aabe markaa dowladdii jirtay dowladda xilligaa haysay unbaa waxa weeyaan qorshayaasiisa hirgelin weydee laakiin qorshayaal badan buu keenay marka xafiiska dhalinyarada ciyaaraha sportiga deegaanka horta aad buu hooseeyaa horta iyaga gobollada iska daa caasimadii oo jijigaa waxa horta deegaanka dhan sportiga ugu hooseeyaa waxaana waxa weeyaan horta sportiga kubadda cagta horta xoogga lama saarin aad xoogga lama saarin waa meesha waxa weeyaan kubadda cagtuna waa meesha kubadda waxa la ciyaaro meesha ugu qaalisan weeyaan dhalinyarada kubadda cagta dhalinyaradu waxay ugu jecel yihiin waa balwadooda kubadda cagta weeyaan nin aan kubadda cagta soo marin ma jirto marka waxa weeyaan xafiiska dhalinyarada ciyaaraha sportiga waxa weeyaan aad buu shaqadiisa uga gaabiyay xafiiskaasi hadday noqoto xagga dhalinyarada hadday noqoto xagga wacyigelina hadday noqoto xagga tababaraha waxyaabo badan xafiiskaasi aad buu uga gaabiyey ka xafiis ahaan ka sokow xukuumaddu door noocmee ku leedahay qoyska reer Cadays Budiste ma jiraan wax wanaaga ama taariikh ay u sameeyeen Allah naxariistay Cadays Budiste ها حكومة وجران حكومة دولة يعني Soomaalida uu hogaaminaya mudane Mustafa Maxamed Cumar waxa weeyaan ka qoysahaan aad bay uga qayb qaadatay tusaale ahaan oo kale hadii aan waxyaabaha ay ka qayb qaateen aan ku sheego aan bay isagoo xafiiska sportiga u shaqeeyay ayuu xanuunsaday waxa weeyaan uu xanuunsaday xanuun baa ku dhacay markuu xanuunsaday waxa weeyaan xukuumadda ayaan ka codsanay in macnaha aabe dhakhtarna loo geeyo xukuumadda codsiga way ka soo jawaabtay oo madaxweynuhu hogaaminayo way ka soo jawaabtay waxa weeyaan codsiga way ka soo jawaabtay aabena wax weyn baa u qabteen aabe saacadiisii baa gaadhay laakiin xukuumaddu
waxa weeyaan garab istaag iyo dhaqaaleba iyo dhakhtar intaba ka qayb qaadatay marka anagoo aabe waxa weeyaan anagoo aabe dhakhtar inaan geeno rabnaa oo waxa weeyaan inaan dhakhtar geeno u qabanqaabinay baasaboorkiisii u diyaarinay waraaqihii u diyaarinay waxa weeyaan xukuumadduna wixii noogu tala gashay ayna siisay oo dhakhtaran ku geen lahayn ayuu geeriyooday aabala naxariistee macalinkan todobinjirada xulka qaranka bari bartamaha afrika qaaday nuur aamin taariikhdiisa wuxuu ka mid ahaa ardaydii allah naxariistay bacdis budiste ها macalinkaas macalin nuur maxamed aamin aniga nimanka axmed ahaana ninkaasi waxa weeyaan aqoon gooni baan u leeyahay waxa weeyaan ninkaas afkiisa iga sheekeeyay aabana allah naxariistay aabana waxa weeyaan aabana ninka iga sheekeeyay macalinkaasi aabe markuu xulka qaranka Soomaaliya tababaraha u ahaa ayuu nuur macalinka nimanka tababaraha xulka qaranka Soomaaliya 7 jirada ah ayuu aabe soo gacan qabtay waxa weeyaan ciyaartooy wuxuu ku soo daray xulka qaranka Soomaaliya ayuu ku soo daray marka macalinkaas waxa weeyaan horta macalinka horta hambalyan u diraya guusha uu gaaray waxa weeyaan waa nin waxa weeyaan Soomaaliga Soomaalida taariikh ku xidhay waxa weeyaan ninkaas Addis Ababa deganaa markii hore hadda Soomaaliya inta loo jeedo Addis Ababa deganaa Addis Ababa markuu deganaa markuu jijiga yimaado ninkaasi wuxuu dhigi jiray xaafadda Cabdicasiis Budiste ayaan xaafadeeda ah dhowr jeer uu Addis Ababa ka yimid aniga gacanteeda ku soo dhaweeyay aniga soo kaxeeyay aniga xaafadda keenay marka ninkaasi dhowr jeerna uu ka sheekeeyay dhowr jeerna uu mahad celiyay aabo wuxuu yidhi inaan heerkaas soo gaaro kubadda cagta oo waxa weeyaan magacayga si fiican magacaygu meel walba gaaro macalinkayga Cabdicasiis Budiste ka dambeeya buu yidhi ugu dambeyn fariinta aad diraysid muxuu yahay dhalinyarada deegaanka u diraysiinay sportska waxaan u dirayaa dhalinyarada deegaanka dhammaan waxaan u dirayaa inay kubadda cagta aad u ciyaaraan waxa weeyaan haddii wax loo qabto iyo haddii la garab istaago iyo haddii aan waxba loo qabaninba kulle waxaan leeyahay kubadda cagtu waxa weeyaan waa caafimaad waa isdhexgal bulsho weeyaan marka waxaan ku waaninayaa dhalinyarada deegaanka waxaan ku waaninayaa inay kubadda cagta aad u ciyaaraan ay dadaalaan waxa weeyaan xukuumad kaliya in wax laga sugo maaha xukuumadda hawsheedu iska badan tahay waxa weeyaan xukuumadda hawsheedu iska badan tahay laakiin dhalinyar ahaan waxaan leeyahay xaafad jigjiga intaasoo xaafadood baa ka dhisan waxa weeyaan xaafad kasta intay is habaabusho waxa weeyaan dhalinyarada xaafadda ka soo jeeda waxa weeyaan ama dareeska u yimi karaan ay ku ciyaarayaan ama kabaha u yimi karaan ama waxa weeyaan ama biyaha ay cabayaan u yimi karaan marka dhalinyaradu waxay u baahan yihiin waa moraal kubadda cagtu waa moraal dhalinyaradu haddii moraal waayaan kubadda cagta way ka leexanayaan balwaday kala gelayaan marka dhalinyarada deegaanka waxaan aad aan uga waaninayaa inay balwadaha intaas ka ilaaliyaan ee kubadda cagta aad u ciyaaraan guud ahaanba daawadayaal intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa qodobada aynu toddobaadkan kusoo qaadanay barnaamijkeena codka dhalinyarada
alaaba waxaa idinla socodsiiya anigoo ah Xamdi Maxamuud muuqaaladaasi quruxda badan waxaa si heer sare igala qayb qaatay igana caawiyay saaxiibkay Cabsalaan Nimcaan waa habeyntii Mukhtaar Cabdi annagoo isku duuban intaynu barnaamij la mid ah toddobaadka dambe aynu dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo